dowladda Turkiga ayaa sheegtay inay tarxiishay muwaadiniin dhalatay waddanka Britain kuwaas oo ay sheegtay inay ka barbar dagaalamayeen ururka Daesh ee gudaha Suuriya. wasaaradda arrimaha gudaha Turkiga ayaa sheegtay in 4 muwaadin oo ay ku sheegtay inay ahaayeen kuwa argagixiso ah oo haystay dhalashada waddanka Ingiriiska loo tarxiilay dalkooda. afyaan u hadlay wasaaradda arrimaha gudaha Turkiga oo lagu magacaabo Ismaaciil Jatakli ayaa sheegay Novembartii la soo dhaafay in ay bilaaban doonto tarxiilidda muwaadiniinta ka tirsanaa ururka Daesh kuwaas oo ay Turkigu xidheen. xilligaasina waxa uu sheegay in Turkigu uu go'aan cad ka gaaray arrinta dadka ka soo jeeda wadamada reer galbeedka kuwaas oo ka barbar dagaalamaya ururka Daesh. dowladaha Canada iyo sidoo kale Holland ayaa iyana muwaadiniin ka soo jeeda waxa ay ku xiran yihiin dalka Turkiga waxa uu sheegay afayeenku in iyana la tarxiili doono. Novembartii la soo dhaafay wasiirka arrimaha gudaha waddanka Turkiga ninka lagu magacaabo Suleyman Suweslo ayaa sheegay in Turkiga aanay ahayn hodheel ay degaan canaasirta ka tirsan ururweynayaasha Daesh iyo Al-Qaacida. dowladda Turkiga ayaa la daalaa-dhacaysay xakamaynta muwaadiniinta Suuriyaanka ah kuwaas oo ka soo barakacay dalkooda tan iyo marka Suuriya ka bilowday dagaalka sokeeye waxaana jiray dagaal xooggan oo lagula jiray ururka Daesh. Turkiga ayaa kal hore sheegay inay gacanta ku hayaan rag lagu tuhumayo inay ka tirsan yihiin ururka Daesh. sidoo kale kal hore dowladda Ingiriiska ayaa diiday inay gudaha dalkeeda ku soo laabtaan muwaadiniintii Britishka ahayd